culimada timaweynta ee ku dhaqan guud ahaan dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa habeenkii xalay ahaa isugu timi xalfad ay ku weyneenayso amaba ay ku siyaaranayso Sheekh Yuusuf Kaynuun oo loo yaqaano Sheekh Barkhadle oo ku aasan magaalada Aw Barkhadle taasoo sanad walba lagu dhigo siyaaradiisa halkaasi waxaana halkaasi isugu yimi culimo aad u fara badan oo halkaasi wacdi iyo waana ka soo jeedisay isla markaasina halkaasi ka qaadaysay qasaayidka iyo shalaad lagu siyaaranayo Sheekh Yuusuf Kaynuun sheekhan oo ahaa sheekh magac weyn ku leh guud ahaanba deegaanada Soomaalida kadibna culimada iyagoo ku jira siyaarada Sheekh Yuusuf Kaynuun ay saakaarooriyadii hore qudbiga uu ku waasay Sheekh Yuusuf Kaynuun waxaana halkaasi ka soo jeediyeen shalaad iyo ducooyin iyo sidoo kale hadallo waanooyin ay soo jeedinayaan guud ahaanba dadka ku dhaqan Jamhuuriyadda Soomaaliland لله يا برخد الله غدنا يا برخد الله عليكم السلام لله يا برخد الله لله يا برخد الله غدنا يا برخد الله عليكم السلام anagii inta kaleete ka soo qabgashan waxaan ugu hambalyeeynaa in ilaahay sheekh muusinkiisa aynu tacdiiminayno ixtiraamnay diintii maxamediyada aynu ku xasuusanay aynu ubadkeedu ku barinay dalkeena iyo dadkeena ilaahay noogu barakeeyo roobka ilaahay noogu shubo waa tamasuk iyo tabarruga ee kala jira tawassulku wax jira nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu kun ma allahi fa in lam takun ma allahi fakum ma man kana ma allah fa innahu yusiluka ila allah nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa haata mar walba adoon ilaahay miciisa ah hadaa adigu ilaahay miciisa ahayn fakum ma man kana ma allah ka isagu ilaahay miciisa ee ilaahay cabsida kaaga dhow miciisa noqo maxaa yeelay fa innahu yusiluka ila allah ilaahay ayuu ku xiriirinaya ka isagu ilaahay miciisa la ilaahay aan caasiin haddaad la socoto ilaahay xaqiisu ku xidhinaya maxaa yeelay xadiis rasuulka alayhi salaatu wasalaam yuhshuru al-mar'u ala diini khaliilihi qofku waxa lagu soo xaashirinayaa diinta saaxiibkii ama qofka la sodoma cid uu raaco arabtuna waxay tiraa man jalasa janasa qofku cid uu la fadhiiso ayuu la jinsi iyo la dhaqan noqonay marka waxaan kaga daynaa dhaqankii wanaagsanaa ee saahidnimada lahaa ee tawaaduca lahaa ee ay tufku khayrayaasha ku ahaayeen waxaan diidahay wax ka aqbalo sheekh arday sameeyay weydaaysi walaalayaal waxaynu joognaa maanta aynu isugu nimi macsharkan weyn culimada faadisha ayaa sharaafta isugu yimaadeen waxa weeyaan siyaaradii sheekhana Sheekh Yuusuf al-Kawnayn aynu isugu nimi sheekhana Sheekh Yuusuf al-Kawnayn wuxuu ahaa wali ilaahay doortay oo caarifa ayuu ahaa wuxuu ahaa sheekhuna wa sheekhu mashaayikhina wa abayna wa ajdadina al-awwalin ayuu sheekhooda ahaa wuxuu ahaa sheekhu ustaadkii Afriqiya ayuu ahaa macallinkii Afrika ayuu ahaa waxaa culimadu ay si fiican taariikhda sheekha uga turjumaya waxay leeyihiin maxaan ku dhahay ahad maxaan ku dhahay tolay Afriqiya sidii diinta iyo nashrinta iyo thaqaafada islaamka u gaarsiiyay habeeraatay ma jirin dabaaldega iyo magaranaysa maamuuska iyo sharafka weyn mudan ee macalinkeeni Afrika Sheekh Yuusuf Barkhadle aynu ku weyneynayno taariikh nololeedkiisii iyo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad aynu kaga waramayno dhalashadiisii wafaadkiisii iyo waxyaalaha qabtay meelo badan la isaga wada yimid marka dhammaan marti sharafka meelaha kala gedisan ka timi ilaa min Sweden ilaa min Soomaal ilaa min Ethiopia kulluhum wa qul lahum wa min as-sahafiyin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marka labaad أنا هذا الكديرين شيخ تاريخ دي وين كده ركسنها إن بدنو ومدة كم إذا نوي مشايخ كم إذا وي نوسو قد بين دونا وي نوسو قد بين وحن مرلوات يمرصد حد وهم بليانية ومدة إسلام خاصة رئيس سوماليان وحن ليه هاي هم بليو ومدة الصومالية دمان الصومالية كو هذا السنة وحن ليه هم بليو سيارة ذا أما موسم كيسة إلى هاي بش يبرواقه هنا جو جارسيو أنا وحن كم إنه وقتي ذيك السوق يتنسى ما كتمي مجال كي بركيزنا بربرة قبل كي ساحلها الشيخ يوسف ماما خاصة كصوب حضين وفد هذا العرس بانهين رجوا وين أو إلى من السودان كيمي أو سلطان الهريين أو كم ذي هاي سلطان محمد أو يسوقنا يسوق كم رمي دونا سي زيارة ذا ويمدي أموره سي اللهم
اللهم صل على زين وجود iyo waxyaalaha uu qabsoomay bisna inooga warrami doona. My first time coming to Somaliland and mashallah I'm very very happy with what I have seen. Very nice people and there is so many history that connects Somaliland with Harar in Ethiopia which has been forgotten over time. We have our Barkhadli in Harar, the maqam there, and I was very surprised to see one here. I did not expect this, but I was very happy to see that, and Allah has given us the opportunity to participate on the yearly ziyarah. waxaanu ku garanaynaa daruurta inoo timi iyo malaha xagga waqooyiga aanu degno waaba ka horeyba marka horta qabuulkii maanta qabuulkii waa inoo dhacay ilaahayna waa inoo aqbalayaa raxmadiisa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi laa tazuulu qadamaa cabdin xataa su'ila can 40 afar xaalo ilaa qof walba la weydiiyo maalinta yoomalqiyaame jannana looma kaxeeyo naarna looma kaxeeyo su'ila waxaa la weydiiyaa qof kastaba can jasadii fii maa afnaahu fiih jidhkiisa adduunyada inta uu joogay waxa uu ku dhammeeyey ee khayr iyo sharah ee jidhkiisu ku soo dhammaaday ilaa la weydiiyo dhinacna looma kaxeeyo su'ila waxaa qof kastaba la weydiiyaa can cumrihi fii maa afnaahu fiih cumrigiisii wuxuu ku soo dhammaystay adduunyada intuu joogay na waa la weydiiyaa su'ila waxaa la weydiiyaa can camalihi fii maa yucmal fiih adduunyada intuu joogay camalkiisu wuxuu ku soo dhammaystay ilaa la weydiiyana dhinacna looma kaxeeyo su'ila waxaa la weydiiyaa qof kastaba can maalihi fii maa anfaqa fiih waxaa rabbi yidhaa adduunyadii iyo maalkan ku siiyey maxaad meel wanaagsan ka gelisay maxaad dadka wanaagsan aad ugu deeqday maxaad wax wanaagsan maxaad adduunyadii aan ku siiyey xaggaad marisay afartaa xaalo ilaa qof walba la weydiiyo dhinacna looma kaxeeyo camalladaa wanaagsan waynu doonaynaa inaynu gallo ee laynaga sugaayo waxaa intaa i raacay roob doon baa la yidhaa waa la tukanayaa intaa cirradaas iga soo baxday waxaa maqlaayay roob doon baa la tukanayaa waa roob doontu dee waxay leedahay kutub bay leedahay oo sifo loo raacaa bay leedahay oo waddo loo raacaa bay leedahay inta casiir subaxdii iyo beer lagu soo quraacdo gaadhi cadna la soo kaxaysto cadarna laysku soo shubo maawsaxana la soo qaato laba tallaabo intaan la qaadin lama tu'sado dee waxay kutubta ayaa u dhigta culimmadii waatan joogtaa waxaa kutubta roobdoonta laga eegayaa waxa weeya kitaabul istisqaa'i kutubta roobdoonta iyadoo aan la eegin oo la garanaynin ayay dad juhaalihii sidaa aan sheega yeelayaan sidaa maaha maalin dhawaad waynaga tukanaynay sidaynuu tukannay tukadkii waxaa la doonayaa marka horreeya 3 casho la soomo marka labaad in laysa saamaxo marka saddexaad in wixii laysu celiyo dayn layska saamaxo in 3 casho la soomo in bannaanka loo baxo in marya xunxun la qaato in dadka waayeelka gacmaha la qabto la jiido in adhiga iyo xoolaha dabada laga kaxeeyo dad iyo dunyaba inay haraariyoodaan oo laga ilaaliyo biyaha iyo baadka iyo hadhka horta ilaahayba maanta wayna aqbalay allahayna aqbalo ilaahay muraadkeenna sana allahayna siiyo roobkaynu ugu jecelay maanta roobka ilaahayna siiyo ilaahayow roob baannu kaa rajaynaynaa allahayow roobka noo fasax oo daruurtan booyaddan noqonaysaa ilaahayow noo fasax raxmad barakale ilaahowna sii wixii naga xanuunsanayaa low noo dawee qabuul iyo khayraad ilaahowna sii cafi iyo caafimaad ilaahowna sii maxamed cali luux telefishinka caalamiga gobonimo TV magaalada Berbera.